محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال ولا ريال سيدي هراء الإعلامية وحان بلنصرين محاضرة شيخنا الشيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون يعني ما حفظه وحاكنا فضل الإعراب الشيخ عبد الله الشيخ محمد حاج عبد السلطان inaan helnay isagana markii iclaanka aan qoraynay aan ogeyn laakiin ka bacdi aan ogaanay inuu joogo Sweden isaguna alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaaha ku mahadsan ana waxaan ku soo dhaweeyay culumada bismillah alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسك ولا لدقون دايان وسيدين لو بدبادي كرا دلينتين وسؤال أنا نلقى جوابه هيدين marka la eego dhallinyaradeena Yurub joogta nisbada ama inta aynu ka nahay suuqa mukhadaraadka ama xabsiyada ama xataa almusaxaat alcaqliya meelahan dadka buufsi ku dhaco la geeya aad bay tiradeenu u badantay wadan walba dad badan baa xanuunsanaya maskax ahaan dad badan baa xabsiyada ku jira dad badan oo dhalinyarada gaangiska iyo mukhadaraadka raacay waana tiro badan yihiin su-aasha isweydiinta la waxay tahay saynu u badbaadin karaynaa hal lahu min mustaqbal wax mustaqbala aynu diyaarin karnaa ma jiraan mise waxaynu nahay dad dabar go-aya uno maalinba ini khadka ay kasii baxayso وسؤال أنا رانكر صدق في السنة دول وجدا بيبه ولا سويديني عفلا يودك إنك كان صدق سنكوها الموضوع وحاجنا كهذا ولنا وحقبت كده الأمور نقلمد وحبت بادية إنه تلمامنا si ballaaran uga hadallo mashaakilku oo kaliya ayaynu inta badan ku gaabsanaa waxaan baa dhacay waxaan baa jira kan baa jira carruurtii kan baa ku dhacay cid waliba problem bay ka hadlaysaa laakiin cid xal haysa ma jiro mashaakilkii waa la wada akhrinayaa reeraha waa wada haystaan reerkaana hadda haysan berritu ku dhacayaa cid jawaab u haysaana ma jirto waxay hayd inaynu dib isu weydiino mawduucaadkeena waxaynu soo bandhigaynay qaabka aynu wax u korinayno baa qaldan ilaan weli waxaa jira waxay yidhaahdaan culamada tan quality control marka wax la samaynayo marka hore waa theory kadibna warshadaa soo saarta kadibna qolaa loo geeyaa productkii la soo saaray quality control ku samaysa eegta wuxuu wixii la filayay inuu yihi inagu muddaynu hadda wadanadan deganayn malaa intii aynu garanaynay dee waa tijaabinay laakiin wixii soo baxay kumaynan qancin intii aynu garanaynayna waa tijaabinay wixii soo baxayna kumaynan qancin su-aashu markaa waxay tahay xalku wuxuu yihi galgii la soo galay meelaha kan wixii la isu sheegi jiray haddaan imka dib idinku sheego na yeeli maysaan xalku waa inaa waddankiinii qabataan xalku halkan waxba ku haysan kari weynay oo ku korin kari weynaye dee inaynu xal kale eegno mise waxaynu sugnaa qof waliba inta uu sii dhimanayo naftuga sii baxayso inta dadkiisu sii lumaya maynu sugnaa mise haddaynan xal halkan ku haynin oo qaab aynu wuxuu toosina aynan garanaynin mala waxa habboon inaynu dib ugu dhacno
secure net shalki xageena waxaynu ku haysanay shabag culture iyo diin iyo dhaqan iyo wax isuwan oo qofka ku ilaalinaya at least ayuha alahibba balbar kalaan ku celin wixii ay ila muuqato meel maran ma joogno ee waxaynu joognaa meel dad leeyahay oo dowlada ka dhisan yihiin oo sistema ka jira waxaynu joognaa meel wax waliba open yihiin wax waliba qofka ay u furan yihiin xumahoo dhami bannaanka yaallo manaahij iyo waxbarasho aan aragtidaad rumaysantay rumaysanayn ay ka socoto dunida social mediaan hadda dawakiyay oo sii tiro batay baatilka iyo waxa xun oo la qurxinayo ama ururaba leh waxaynu inagu xumo u haysanno ayaa dhulkeenu deganna ururo u doodo oo ilaalinaya leh su-aashu markaa waxay tahay saynu u badbaadi karnaa afar shay intaynu u kulansan yihiin waa adag tahay in la badbaado afartaa shay waa maxay horta ummad waliba dee mustaqbalka dadkeeda ay u takhatiidisaa waddanadaynu joognaaba dhibtu iyaba waa haystaan laakiin ugu yaraan dee wixii ay rumaysnaayeen way tijaabinayaan inay ummadooda usoo bandhigaan ummad waliba markaa da-deeda yar waxa ay raadacaynaysaa sida ay u fakerayso inuu mustaqbalkeedu noqon karo innaga haddaba intaa afar shay meesha yaalliin way adag tahay sida madaxeenna ka guuxaysa inaynu ku guulaysano afarta shay maxay yihiin waa kow ummiya diiniya umminimada sooma taqaanin literacy yani illiterate inaynu diinteennaynu ka nahay aqoon darra inaga haysataa asaasiyaadkii diinta iyo furuudul caynkii iyo wixii qofka muslimkaa laga rabay inteenna badani uma saxna kaasi waa qodob qodobka labaadna waxa weeyaan usar mutafakika baynu leenahay qoysas burburay oo inta ugu badan leh in badan oo ka mida qoysaskeenna way burbureen ama qarkay u saaran yihiin inay burburaan ama odaygiina afrikuu jiraa carruurtii iyo salaantiina halkay joogtaa waa la kala maqan yahay iyana waa mushkilad labaad oo mujtamaceena haysta mushkilad saddexaad baa jirta oo ah tarbiyadu iyo wax kobcintu waa fanni u baahan in la barto fannu tarbiya walqiyaada inaad qoys iyo carruur iyo dad hogaamisaa hogaamintu iyo kobcinta iyo barbaarintu waa cilmi dunida la barto kaana ma rabna inaynu baranno at least dadku hadday dad aqoon-yahana ahaan lahaayeen garan lahaayeen carruurta da' kasta uu joogo sida loola dhaqmo da' kastaa siday u fakarto da' kastaa waxay u baahan tahay in lagala hadlo at least hadday aqoontaasi ay jiri lahayd dee waxbaynu tijaabin lahayd laakiin teenu waa maxay waa darawallo aan darawal ahayn adigu nin qiyaasun intuu meelaha gaadhiga sida loo kaxeeyo yaro dhegedhegeeyey oo lagu yidhi gaadhiga geerkaa la geliya dabeetana saliiddaa la taabtaa caynkaasaa la yeela waa la dhaqaajiya waddooyinka saasaa loo mara kaasi darawal ma noqonaya waa maya iyadoo cid baratay barashadu waa laba mid unbay ku timaadaa ama waxay ku timaadaa inaad dee dugsi iyo meel wax laga barto aada u gasho si fiican aada u baratid ama aqoon tajribo lagu keenay aqoonta tajribada lagu keenay matalan markaad waddankaaga joogto ayeeyooyin baa jooga eedooyin baa jooga hooyooyin baa jooga awowyaal baa jooga adeer dad ugu yaraan kaa tajribo badan baa jooga oo wuxuun ku hagi kara halkan mostly kuwaasina ma jiraan aqoontii ahayd inaad soo baratana maad soo baranin marka waa umminima inaga haysata iyadana
xagga kobcinta iyo hogaaminta midnaba aqoonteedii ma hayno saddexdaa qodob oo cillad innaga inaga jirtaaba waxaa raacay xaadina ijtimaaciya khatiira environment ama deegaan bulshada kugu xeeranoo wax kula korinayo khatartiisa qaba waa deegaan iskuulkiisii leh qaabkii iskuulka loo dhigayay leh jaarkiisii leh tv-giisii leh midiyihiisii leh qaanuunkiisii leh iclaamkiisii leh deegaan aan valueskaaga qiimo agtooda ka lahayn baad rabtaa inaad wax ku dhex kobciso adiga inaad diin ahaanna ummi baa tahay qoys ahaanna waad burbursan tahay fannigii tarbiyadana ma garanaysid si loo badbaadiyo hadhow baynu su-aal is weydiinaynaa carruurteenni way xumaatay see loo gala dee carruurteenna miyaa loo waxyoonaya haddaad qofka intaad badda dhex dhigto aad ku tidhaahdo waryaa badda gal laakiin ha qoyin suurtagal ma tahy qof intaad bad ku riddo inaad tidhaa ha qoyin carruurtani waa bini aadam dadna way la nool yihiin adna wax maa tusin dhammaanteen wax saxa maynan tusin ha qoyinna waynu ku leenahay iyagoo baddaa ku jiraynu leenahay ha qoyin ayuha alaxiba adduunka cid waliba ubadku waa waxa ugu qaalisanee bani aadam uu haysto nolosha bini aadamka ugu qaalisan dalal dhanbaa dunida ka jira oo kule ma lihin resource laakiin dadka yagaanu maal gashanaa bay leeyihin jabaan wasiirkeedu intuu hadduu wuxuu leeyahy jabaan ma laha buu yihi resource yani waddanku ma laha wax soo saar ma laha waddankoodu wax soo saarku yani mid natural mid ilaahay ku abuuray ma haysana bay leeyihin laakiin dadka yagaanu waxbaraa bay leeyihin dadkooda ay waxbareen waxay keentay dunida maanta u malayn maayo tuulo yaroo dunida ku taalla intaad istaagto wax jabaan samaysay in laga waayayo ama gaadhi ha noqdo ama falaas ha noqdo ama electronic ha noqdo ama mobile wuxuu doonaya ha noqdee maanta wax jabaan samaysay tuulo dunida ku taalloo laga waayaya inaanay jirin bay u badantay waayo waxay leeyihiin we invest waxaanu maal gashanay dadka iyagii bay leeyihin dunidu markaa si ay dadkooda u maal gashadaan waxay isku dayaan inay alculuum alinsaniya kullaha waxay ka hadashaa qofka bini aadamka iyo suluukiyaadkiisa iyo afcaashiisa si loo fahmo hadday sociology tahay hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad tahay hadday waxbarasho tahay waxaasoo dhan waxaa lagu qaabeeyaa bulshadani siday u ekaan doonto iyo noocay noqonayso waxaasoo dhan waxay ka waramaan ma huwa saalix lilinsaan maxaa bini aadamka u fiican educationally waxbarasho maxaa u fiican siyaasad maxaa u wanaagsan dhaqaale maxaa u fiican suluuk iyo dhaqan iyo sociology maxaa u fiican dowladaha iyo ummaduhu way daraaseeyaan si ay ubadkooda nooca ugu soo bandhigaan inagu dowladna ma haysano gaaro wax inoo daraasaysa system gaaro aynu raacnaana ma jiro inagoo qaxoontiya baynu dhul dhisan oo systemkiisa iyo wixiisa la u nimi waxaanaynu isweydiinaynaa saynu u badbaadnaa asalka bini aadamka waxa aynu bini aadamku quman yahay baa asalka ah ilaahay saasuu abuuray bini aadam isagoo qalloocan nashaa ma jiro walaqad khalaqna alinsaana في أحسن التقويم بإلهيه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى بن آدم كسبق منبر نشاه لكن dadka ku xeeran ee aabbe iyo hooye ah iyo bulshada ku xeeran iyo meesha uu ku nool yahay baa wixii ka dambeeya qaabeeya nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiidka uu warinayo ku tilmaamaya muslim ku yaalla وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم إلهي إنه إله دومها يقوى وحنا بورا يقول لما أنتم حريفين حمها كوي عضا لكن وإنهم أتتهم الشياطين بربنا لي الشيطان ماذا أوي ماذا فاجتالتهم عن دينهم شيطان كوي ماذا هالليا وحرمت عليهم ما أحللت لهم الشياطين تاساكا ممنوعة وحيانو حلالي ووفرت إلى إله الشريك يالان
إذن المه عيب مله إلهي بصار أبوري أبوك سنو سحية لكن إنك قاب كيلو كوريني أما ماشي إلوكو كوريني أما هلك إلوكو هينو أيات قابين إسا تحسى أما قابين إسا ودا قلدني الراعه أما قابين إسا ودا ونكسر الراعه هدي مستوى اللوب باهي مسوق قاري لهي محابا نرون لها هلكي صاحبك يودات كيلو ملا قاري لهي لكن إنه تانا ما قاري سيسي نبقى حين الله عليه الصلاة والسلام ويل يرأوا بحاية نن ودادة إيوه نن صاحرة وانا المير المهير لبدا علمي بوالا براه بقر كوحي لي يسوى برا علمك السحرك دبتنا علمك السحرك يا بني آدم تصال لو قلطان لبراه نن ودادة وصوى مرايا وحو براه إلهي سبحانه وتعالى يسأل له عابده يعني المهني وحو هلي لبا علمو أتليست بالانس السؤال markay labada aqoomood balaasirka noqdeen laba aqoomood oo isu dheeli tiran markay noqdeen ilmuhu ala fitrati xaq xaq u raaca tii wada ku raacay sida xadiiska ku qoray inagu tii kale iyadu way soconaysaa khubara dhigta laga bilaabo kindergartenkiina yar ilaa ay jaamacadda khubaro ku takhasustay ilmo yar si wax loogu dhigo iyo waxa ay rabaan si ay u fahamsiiyaan baynu geynaa kuwaasi 8 saacadood bay hayaan adna waad marantahay markuu kugu yimaado wax kale aad u sheegaysaa ma jirto maxaad sugaysaa markaa waa inuu noqdaa ilmaha kani sida macquulka ahi sidii iyagu ay u tababareen waa inuu noqdaa haddaanu kaba sii hoos marin hadduu si saxa u guulaysto sida ay u tababareen waa inuu noqdaa laba midunbuu markaa ilmuhu soo bixi inuu iyagu siday u arkayeen inuu guulaysanayo u guulaystay oo ah wiil yar oo faranjiyeed oo waxbartay ama gabadh yar oo waxbaratay jaamacada ka baxay shaqaysanaya laakiin aliya rasuulka aan rumaysanayn ama diintu aanay qiimo badan u lahayn kaasi waa kii iyagu u arkayeen inuu successful yahay kii guulaystay kii tooda ka dhacayna ee guulaysan kari waayeyna waa kan aynu leenahay مصحات كعقل جابا لجيني يا ما دروغد وقلي يا ما كم وقلي إنه من دبا وحما هينو حنو بهنا مكة وحلا خسارة بنا آدم بوي ولا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا